baan ugu faraxsanahay inaan ugu dambeyntii la kulmo Caashi iyo Cismaan cunugooda cusub waan si aamin laahay inay isla markiiba jirsatay 2 isbuuc wax fiican ayay ahayd inay nagu martiqaadaan booqashadoodii waxaana rajaynaynaa in Caashi iyo Cismaan aysan wax dhib kala kulmin cunugoodii ugu horeeyay waan xasuustaa saan ugu daalnay maxamed balihii hore خديج أديك عفمات قب أيها كام مقدة سيدا أي عفمات كأوش قيسا أنت أور كلذا أنيك دبوا واجاجونا وحكى بقاي الناس يعيلو يا عم بجح جيحن دكتور ديدا دكتور روس أيا سفي عن وح يقول فهفاهسة أنت أور كلذا هاي وحا هبون إن آذ عنتو هيلبك باروت كويري هاي سيدا دقاقة أيو ملايقة أنت عوني لهاد هيلبدا عيل كبدن سيدا لوضا يا أريقة دمان عنتوين كلا عنو مرول بوحا مهم إن لعنو عنوين كلا دوان دكتور روس ayaa ii sheegtay sida muhiim cunugayga iyo aniga noogu yihiin fitamiinada dhalmada ka hor la qaato waxaan maqlay fitamiinada dhalmada ka hor la qaato inaad ku cayili kartid oo xanuun kugu dhalin karaan maya run ma ahan in fitamiinada aad ku cayisho dr roos waxay ii sheegtay haddii uu fitamiinada ay xanuun kugu dhaliyaan waxa xanuunkaas dhimi kara inaad qaadato intaadan seexan iyo kadib markaad cunto waxay kaloo tiri cabitaanka biyo ama caano kugu filan waxay iga caawinayaan laqada fitamiinada waa inaad bilowda qaadashada fitamiinada durba laakiin umulsadayda waxay igu tiri waxa ugu fiican cunugayga u qaban karo waa inuu caafimaadkayga daryeelo cunto fiican iyo fitamiinaad qaata waan ogahay inuu quraanka nafarayo inaan naaska nuujino cunuga ilaa 2 sano ma ku filan yahay caanaha naaska cunuga naas nuujintu waxay kale ka caawin kartaa inaad waqti u dhaxaysiiso uur qaaditaanka si naas nuujinta kaaga caawiso inaad ilmaha kala dheereyso waa inaad 3 waxyaalood la timaado ugu horeyntii cunugaagu waa inuu ka yaraado 6 bilood tan labaad waa inaad si xawli ah u naas nuujisaa taasoo loola jeedo waa inaad cunugaaga naasis mar walba uu u baahdo oo aadan siin caanaha budada ah caanaha naaska ee cagaaga ku jira iyo cunto kale ama cabitaan kale tan saddexaad waa in aadan bilaabin dhiigkeenkaagi mar kale dhaliinka kadib markii uu gaaro cunugaagu 6 bilood haddii aad naas nuujintu joojiso ama aad caadada hesho habka ilmo kala dheereynta kuma shaqaynayso okay cali waxaan leeyahay 5 caruur ah oo caafimaad qaba waxayna kala weyn yihiin 2 sano wax ka yar runtii waa inaan dhalnaa intuu ilaahay noo qoray ma aha inaan isticmaalno waxyaabaha caruurta joojinaya dhalmadooda laakiin diinteena way ka soo horjeedaa joojinta caruurta ama dhalmada arrinkani xataa waa ka fikirayay xasanow waa sababtaas mid aan aniga iyo xaaskayga Khadiijo u aadnay imaamka si aan ugula hadalno caruurta kala dheereentooda iyo waxay diinteenu ogoshahay in aan suubino بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين marka hore waad mahadsantihiin jazakum allahu khayran inaad soo booqataan markastana way wanaagsan tahay markii arintu ay tahay arin diin ah in culimada islaamka loo tago oo su'aalaha la weydiiyo waayo diintu waa noloshii qofka muslimka ahayd marka bulshada muslimiinta ah ama qoysaska ilmaha way kala durkin karaan way kala nidaamin karaan laakiin waxaa la xarimay oo la diiday inay xadido haweentii ama qoyska ay yiraahdaan ilmo ma dhalayno ama hal kaliyan dhalayna taa ayaa la xarimay waa dhali kartaa 5 caruur ah laakiin iyada iyo caruurteeda waa ay caafimaad badnaanayaan faraxsanaanayaan markii la kala dheereeyo waa lagu qala cunuga Soomaha waa ka cabsanay aniga inaan ku qasbanaado in la qalo waan maray qalin sidaas intaan foosha ku jiray mulsadeedu waxay tilmaami kartay in uu cunuga si qalada uurka ugu jiray oo ay kala foortay waxay igu tiraaday
si nabad uma dhali kartid haddaan lagu qalin marka waxay u yartay dhakhtar si uu qaliinka c sectionka ii mariyo waan cabsanayay laakiin waxaan doonayay inaan aniga iyo cunugaba aan badbaadno ma ahayn badbaado Soomaaliya qalliinku halis ayuu ahaa waxaa laga yaabaa haddii aad ilmo kala dhasho inaad caadi aanad u dhalin waxay umulsadayda ii sheegtay intaan ku guda jiray qaliinka Mareykanka inuu yahay mid nabdoon markii loo fiirsho kan Soomaaliya hooyooyinka waa ay dhali karaan kuwa kale qaliinka kadib oo qaliinkan wuxuu badbaadin karaa hooyooyinka iyo carruurta noloshooda haddii cunuga isrago sida kayga oo kale waxay ila tahay inaan baranay wax badan haddana waxaan aad uga shaqaynayaa inaan caafimaadkayga daryeelo intaan uurka leeyahay iyo barashada sidaan caafimaad ku lahaan karo kadib markuu cunuga yimaado sidoo kale ma ogaad in aamino uur leedahay waxaan ka hadalnay waxyaabaha caashiyo aniga aan baranay maanan ogeen waa arrinka farxisa cunugoodii ugu horreeyay ragga iyo aniga waxaan ka hadalnay sida carruurta loo kala dheereeyo iyo sida ugu bannaan xagga diinteenna waxay ila tahay in Cusmaan uu ku faraxsanaa arrinkani uu maqlay sababtoo ah durba wuu daalanaa waxaan ka fikiri karaa sida aan u daali doono markii uu cunuga kala yimaado anigoo kala dheereynaya waan ku faraxsanahay inaan kala dheereynayo